maxaa waqti xaadirkan ku soo aadiyay in Sacuudi Carabiya iyo arrimaha Soomaalida aad u danaysa isla markaasna ay ka faa'iideysato isbeddelka dhanka siyaasadeed ee afartii sano ee lasoo dhaafay uu hogaaminayay madaxweynaha muddaxileedka ka dhamaaday ee Farmaajo Roble oo waqti xaadirkan loo arko inuu yahay siyaasi dhexdhexaad ah isla markaasna soo celin kara xiriiradii waaweynaa ee hore u lumisay afartii sano ee lasoo dhaafay dowladda uu hogaaminayay madaxweyne Farmaajo ayaa waqti xaadirkan waxay u egtahay in xukuumadda boqortooyada Sacuudi Carabiya ay arrintan si taasi ka duwan ay uga faa'iideysanayso isla markaasna waxay magaalada dalkeeda Sacuudi Carabiya ku martiqaaday madaxda ugu horeeya ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada ee dalka arrintan si dhab looma ogo iyo waxyaabaha rasmiga ah ay boqortooyadani ay casuumaadda rasmiga ugu fidisay madaxda maamul goboleedyada maadaama uu ku filan yahay casuumaadiisa ra'iisul wasaare Roble oo isagu matali kara guud ahaanba magaca Soomaaliyeed iyo dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya wararka ayaana sheegin maalmaha soo aadan Roble iyo shanta hogaamiye dowlad goboleedba ee dalka ka tagi doonaan magaalada Riyaadna ay tagi doonaan caasimada wadanka boqortooyada Sacuudi Carabiya halkaas waxa wada hadallo kula galayaan madaxda sare ee dalkaasi Sacuudi Carabiya sidaan ogaanay socdaalkan wafdigani culus ayaa salku ku haya arrimo la xiriira xoojinta labada dhinac oo aad u hooseeyay sanadihii la soo dhaafayba Sacuudiga oo iyadu markii hore oo kaliya ay doonaysay in casuumaad u fidiso ra'iisul wasaare Roble ayaa markii dambe waxay danaheedii dhanka maamul goboleedka ka dhaxaragtay fursad weyn oo iyaduna u wici karto inay yimaadaan magaalada Riyaad ee dalkaasi Sacuudi Carabiya si ay iyaguna dhinkooda uga faa'iideystaan wada hadallada isla markaasna wax kasta oo laga wada hadlaya ay dhinac ka ogaadaan maadaama la sheegayo in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay arrintani ka xanaaqeen markay maqleen in uu casuumaad ay ra'iisul wasaare Roble isla markaasna uu ku tagayo dalka Sacuudi Carabiya wixii intaasi ka dambeeyay waxaa la sheegay in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ugu horeeya Puntland waraaqo u direen Sacuudiga iyagoo sheegaya in ay rabaan in ay casuumaadda loo fidiyo ra'iisul wasaare ka mid noqdaan safarka ayaa soo shacbaxay xilli xasaasi ah isla markaasna xukuumadda xilgaarsiintu ay ku howlan tahay arrimaha doorashada xoojinta xiriirka dibadda waxaana wafdiga xukuumadda uu horkacay Roble ee booqasho ku tageen horeyba Nairobi iyo Qaahira ee dalka Kenya iyo Masarba Sacuudiga oo isagu galaangal xoogan oo mid siyaasadeed ku leh gudaha Soomaaliya ayaa waxa waqti xaadirkan qorshihiisu weyn ama dabiciisu ugu weyn yahay in Roble iyo madaxda maamul goboleedyada maadaama doorasho la gelayo waxaana tani oo kale ay dhacday sanadkii 2016 kadib markii dowladda Sacuudi Carabiya aan dowladda Imaaraadka Carabta ay casuumaad wada jira u sameysay madaxdii maamul goboleedyada xilligaas waxayna kala hadashay arrimaha doorashada markaas iyo sidoo kale isbedel laga sameeyo doorashadii 2017 si kastaba warkan oo ilaa hadda aysan ka hadlin dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa hadal hayn badan ka dhaliyay baraha bulshada maadaama uu ku soo aadeeyay xilli xasaasi ah Soomaaliyana ay haatan ku jirto xaalad adag oo kala guura lama ogo dhanka kale waxyaabaha kaga aadan xukuumadda ra'iisul wasaare Roble hogaaminayo qorshahani ay Sacuudigu damacsan tahay inay ka hortagi karaan in uu raaci doono madaxda maamul goboleedyada iyaga tagaya gudaha dalkaasi ee Sacuudi Carabiya iyadoo tani ay noqonayso mid hoos u dhigi karta maqaamka ra'iisul wasaare Roble uu ku tagayo dalkaas maadaama socdaalkiisu ay la jiraan ama qayb ka yihiin hogaamiye dowlad goboleedyo oo iyagu waqti xaadirkaasi safarkooda uusan muhiim weyn ahayn Roble ayaana waxaa laga yaabaa inuu ka baaqsado haddii ay la taliyaashiisa kula taliyaan in safarkan uu iska dhaafo isla markaasna uu ka cudur daarto imaanshaha Sacuudiga iyadoo isla socdaan madaxda maamul goboleedyada waa fursad weyn uu ku celshan karo magaciisa isla markaasna uu ku ilaalin karo maqaamka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee waqti xaadirka